أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. waxaan ku soo jirnay tafsiirkii suuratul munaafiquun aayadda 7 ayuu darsigeenu ka bilaabanaya. waxaa Allah subxaanahu wa tacaala inooga soo warramay munaafiqiinta iyo dhaqamadoodii waxyaabo ka mid ah iyo sababta nifaaqa ku kaliftay iyo ciqaabaha ay mudan yihiin ay leeyihiin. tilmaamahoodii wax ka mid ah baa Allah inoo sheegay oo inay gaalnimo iyo kufri hoos ku qarsanayaan, fulaynimo ay ka muuqato oo qaylo walba iyo dhaqaaq walba ay ka shakeeyaan oo lafahooda uga baqayaan. waxaa la ka warramay fasaaxadooda iyo quruxda jirkooda iyo madhnaanta qalbigooda iyo caqligooda oo faaruqa yahay oo qoryo la tiirtiiriyey ama tiirar la taagtaagay ay la mid yihiin. waxaa kaloo alla inooga warramay in dembi dhaafka haddii loogu yeedho in rasuulku alla dembi dhaaf u weydiiyo ay madaxa ka ruxayaan oo iskibrinayaan oo ka jeesanayaan. dembi dhaafkuna aan waxba watarayn hataa nebigu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. halkan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka warramayaa waxyaabaha ay sameeyeen gafafka ah wax ka mid ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku fadeexadeeyay. arrintan sabab nuzuulka ay ku soo deegeen aayadan labadan aayadood isku xigta ee aayadda 7 iyo aayadda 8 waxay ahayd qisadii Xaalid ibn Isxaaq siirada ku wariyay saaxiib siira markii dagaalkii qaswat bani mustaliq nabigu ku duulay calayhi salaatu wasalaam qabiilkii loo jeeraa bani mustaliq wuxuu ka warramay xilli rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu halkaa joogo oo reer bani mustaliq la dhex degan yahay. waxaa isku dilay ceelkii iyo darkii biyaha laba nin, mid waa Jahjah ibn Saciid al-Ghafaari oo Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu ayuu u shaqayn jiray oo ajiir u ahaa. ninka kalena waa Sinaan ibn Yaziid. markay ceelkii isku ciidiyeen labada nin oo darkii ay isku qabsadeen ayaa mid waliba waa dagaalameen, kadibna dad tol bay u qeyshadeen. Sinaan baa wuxuu yidhi yaa macshar al-ansaar, marka ansaar baa dadka u yeedhay, tollaa iyo ansaareeyey. ninkii Jahjaha ahaana wuxuu ku dhawaaqay yaa macshar al-muhaajiriin, alla yaa muhaajiriina. meeshaas markay laba codkoodaasi soo baxay waxaa warkii soo gaadhay munaafiqiintii. marka Cabdillaahi bin Ubay bin Saluul ninkii munaafiqa ahaa iyo rag la jooga ayaa hadlaya. waxaa dhex fadhiya oo dhinac fadhiya la jooga ag jooga saxaabi yar oo la odhan jiray Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu. markii ay warkaa maqleen ayuu wuxuu yidhi Cabdillaahi bin Ubay bin Saluul waddankeennii bay ku soo qaxeen, kadibna annagii bay nagu kaceen oo kacdoon nagu samaynayaan. faaruuna fii bilaadina, kacdoonkan iyo tollaayadan iyo waxani waa waddankayga dhexdiisii. marka muhaajiriintuu sheegay wallaahi maa milunaa wajalaabiibu qurayshin haadihi ilaa kamaa qaala alqaa'ilu sammin kalbaka ya'kuluk. annaga iyo qolyahaas waxaanu nahay sidii ninkii hore ka maahmaahay ee uu yidhi eygaaga kori ha ku cunee, marka eygaaga naaxi ha ku cunee. nimankan waa isku naaxinay, waa kuwa innagii bay hadda isugu keen habar wacanaya. wallaahi lain rajacnaa ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladal. haddaan madiine ku noqonno ka sharafta leh ka dulligaa wuu saaray. kadibna wuxuu ku soo jeestay dadkii uu la hadlayey, markaasu wuxuu yidhi bal naftiinna waxaad u geysateen daya, waxaad isu samayseen ee isu geysateen bal daya. waddankiinnii baad dejiseen, hantidiinnii baad la qaybsateen oo wax ka siiseen. wallaahi haddii aad ka joojin lahaydeen oo waxaad siinaysaan ay waayi lahaayeen wax waydinka guuri lahayd. lataxawaluu cankum min bilaadikum ilaa gayriha, waydi dhaafi lahay, meel kale u guuri lahayd markay meesha ku gaajoodaan waxba waayaan. laakiin markaad guryihii uga baxdeen hantidii la qaybsateen soo dhaweyseen idinkaa waxaa isu geystay waa kuwa maanta waxaa idinku samaynaya. warkaas Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu waa maqlay
كدبنا رسولك عليه الصلاة والسلام وركي أجي ويل يربو حرنيرا نبي مرك ورك الله شيء جي وحلت شو عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرك وركي ورمي زيد عمر وحولي رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه عباد بن بشر أمر سيو نكا قرتها كسوشر رسولك وحولي فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه سيورك النقطة وأنا مركب بدكم شاكيستان عمرو محمد أصحابتي سووا الغاية أول بعد عايد ونقبضنا إليه وضدك اللي نجهر تاجناه هدي وركا سنب حول هذا محمد ضدك يسيبوا لينا يا أصحابتي يسيبوا لينا يا اللي ضدك منافق ويكاي الميان إنه أصحابتي كم يدي هاي بالله يستعي حين نقنص حالته لكن لا ولكن نادي يا عمر الرحيم مي كورتان هالقول الله هل قول جدي هالقول الله وركي وقاري عبد الله بن أبي بن سلول كدبنا وايمي مركاسو عذر دارت مركاسو إلهي كو دارت قاشان بكا ديغان جيرين inaan waxan siid sheegayo oranin marka nin de qoomkiisa agtiisana makaana iyo boos ku lahaana uu ahaa markaas waxay yiraahdeen rasuul Allah waxa laga yaabaa wiilka yari inuu wax ismoodsiiyay waa ilma yare wiil yare inuu si uu wax ismoodsiiyay oo ninkan weynida wuxuu sheegay aan waxba ka jirin waxaas aan sugnayn baa laga yaabaa kadib rasuulka kaleey salaatu wasalaam hawshii safarkii uu dhaqaajiyay oo waxa kamid ahay dhaqanka rasuulku sameeyay marka wax dhacaan warar iyo khabar aan fiicnayn jiro in la guuro oo geediga lagu ilowsiiyo warku hadii kale shirar iyo wararka la qaad iyo maxal iyo guux iyo waxba bilaabanay marka hal soo nabiga kaleey salaatu wasalaam goor kulul oo duhura oo soo dhaqaaqay waa xilli aan safarka looga baran in nabigu socdo kadib waxa ka hor yimi walla kulmay Usayd ibn Hudayr ومن كم سيد سادات أوسوي سيد كأوسا قال كل من رسول حولي نبي سلامي سلامتي النبي لماذا رسول حولي والله وحد صور قاضي ساعد لا إنكره في عينين وآذن ساعد الوجوء أكون وآذن صور قاضي شريم ما صور قاضي رسول سليمان كسو قارن صاحبك ابن أبي وحولي وحوش شاكتي أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل marka madiina la tago inka ciidada badan ka duliga saarayo rasuul Allah adiga aziza isagana daliil duliguna waa isaga rasuulka rasuul Allah u dhibri ninka u dhibri ilaahay baan ku dhaartay ilaahay wuxuu ku keenay annagoo taxayna oo tolayna taajkii aan madaxa u saari lahayn annagoo kuushii taxayna وديارنا إلهي كوكانا marka wuxuu arkaa inaad milkigiisii iyo madaxtinimadiisii adigu aad ka boobtay oo ka qaadatay buu arkaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa socodsiiyay dadkii ilaa gabalku u dhacay habeenkiina waa la socday ilaa waagu u bariyay subaxiina waa la socday gelinkii hore ilaa barqadu dheeraatay oo qorraxdu kululaatay kadibna dadkii u dejiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam وساء يليي ودتها كمشغوليو sheekada iyo warka dadku markii ay degeen dhulka markay taabteen oo dad tacbaansan oo soo socday waqti safar dheer galay bay ahaayeen markiiba hurday la daateen kadibna suuratul munaafiqiin baa soo degtay suuradan oo wixii qaada dhigaysa Zayd ibn Arqam oo aad u murugaysan oo warkii iyo wixii uu sheegay leeyahay in been sheegay laga dhigay oo aad u welwelsanna ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kaga fujiyay oo suuradani waa soo degtay markii suuradani soo degtay oo warkan soo baxay waxa la sheegayaa qisaska inkii loo oran jiray Abdullah Muhammad Isxaaq oo warinaya Abdullah ibn waxa jiray ninkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo dhalay oo isna Abdullah leeyahay Abdullah ibn Ubay ibn Salul marka nin mu'mina oo saadiqa iimaankiisu kun yahay ayuu ahaa markii uu soo gaaray waxa aabihii uu sameeyay rasuulku uu yimi kaleey salaatu wasalaam wuxuu rasuul Allah waxay soo gaaray inaad doonayso inaad aabahay disho Abdullah ibn Ubay inaad disho wixii ka soo gaaray daraadeed hadii aad saa sameeynayso famurni aniga ay amar
أنا مدحيسا كوسو قاضية إلهي بان كدارتي reer khasraj way og yihiin nin aabahay iiga baarnimo badan waalid inaan jirin waxaan ka baqayaa waan saa u leeyahay inaad cid kale intaad amarto uu soo dilo cid kale kadibna naftaydu ay isiin weydo inaan indhaha ku hayo qaatil Abdullah ibn Ubay yamshi inkii Abdullah aabahay dilay oo soconaya oo kadibna aan dilo oo kadibna mu'min aan gaal u dilo oo aan saan naar ku galo رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا أنتم لا تشوفوا وهجاتيننا وأدبريننا لا تشوفي سنة وناتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام كمان يشد المية وحكى له مفسرين تقارن كود لقى شيء أكرمت المزيدية تذكر مركي للنقضي اللي قاعد مدينة لقول نقضي عبد الله جاس وعبد الله بن أبي علي wuxuu istaagay albaabkii magaalada meeshii magaalada laga galiyay buu istaagay wuxuu seefta galka kala baxay dadku markaa way marayaan marba qaar baa maraya isaguna wuxuu taagan yahay iridkii magaalada laga galiyay oo seeftu gacanta ku haystaa ku sita oo galka ka baxsan markii aabiyi soo gaaray isla waa marayaan ayuu wuxuu yiri joog rasuul maxaa dhacay warhooge maxaa ku helay rasuul ilaah baan ku dhaartay halka dhaafi meesid إلى الرسول الله إذا كو إدمو إلى النجارة إلى الفصح الرسول كسر قاعدته اللي كان النجارة هل كان دافع ميست فإنه العزيز وأنت الذليل سجى عزيز وشرف له هذه من الدل بعد مركز رسولك عليه الصلاة والسلام يمي مرضا به رسولك عيدا كحق الدم وكسر عنش سوء كضعيف كاي قفك هرائي كجديد كبح معضئي وحاسو صوت من طابيه كذلك النبي كسر عنش لذاتك markii uu dambe soo gaaray ayaa Abdullah ibn Ubay ku dhagay rasuulka oo uga dacwooday wiilka igala hadal markaas rasuulku uu fasaxay oo sii daayay Abdullah wuxuu yiri ilaa baan ku dhaartay ya rasuulallah la yadkhulha hatta ta'dana lahu wallahi inaan gelin ilaa aad u idanto markaas rasuulku uu idmay amma idha adina lak rasuulullah fajuzi al-am hadii rasuulku fasaxay hadda gudub marka arintaasna saas ayuu u muujiyay wafil celiyay wiilkii ahaa Abdullah ibn Abdullah nabiguna عليه الصلاه والسلام aad ugu xaq dhowr jiray markii Abdullah ibn Ubay muslim uu geeriyooday Abdullah baa yimi Abdullah yare markaas wuxuu yiri rasuul Allah qamiiskaaga isii aan ku kafnay kadibna rasuulka عليه الصلاه والسلام qamiiskiisii buu siiyay oo lagu kafnay markii dambe waa uu yimi rasuul Allah kaalin noogu tuko kadib rasuulku waa ku tukaday quraanka ku soo dhigay canaanta leeyahay waxa weeye ha ku tukanino قبل سنة يستاجن خوف بنتي أدم قال الله تعالى هم الذين يقولون هم يجوا الذين كوي يقولون أرني لا تنفقوا هنفقيننا أو حترنا على من عدة عند رسول الله رسولك إلهي أكتي سجوكتان حتى إلى ينفضوا أي كلياعان سكلا تجينه حوي حبها السنين مركب واحد مدائن يجوا رأي حمضوي marka dadka qofku si khaldan isu qanciyo munaafiqiintaas iimaanka loogu taagla yahay ilaahay diintiisa ka soo horjeeda waxay soo arkaan in risqiga dhan ee lagu joogo iyo dawladda dhan ee islaamka dhisan iyo muhaajiriintaasi inay iyaga ku fadhiyaan iyaga ku joogaan saasay soo arkaan markaas waxay leeyihiin la tunfiqu waxbaha siinina wax beelina ala man inda rasuulillah dadka rasuulka agtiisa jooga hatta yanfadu ila ay kala yaacaan alla wuxuu walilaahi ilaahi waxa uu sugnaaday khazaa'inu samaawaati qasnadaha cirarka iyo wal ardi dhulka ilaahi waa iskale rizq oo ilaahi waa bixiya walakin al munaafiqiina laakin munaafiqiintu la yafqahuuna waxa fahminaya fahan xuma haysato baliid waxa fahmin damiina way munaafiq had iyo goor marka wax hoos ka fikiraya iyo waxaan meesha oo dadkani qasnadaha kaydka cirar iyo dhul allii lahaa bay ku xidhan yihiin subxaanahu wa tacaala risqa meelo badan buu soo marinaya iyaga dhexdooda isu soo mariya gaaladii lala dagaalayo jihaadkii qaniimooyin la soo heliya dad sakowaad iyo sadaqooyin la soo gudbiya shaqooyin ay dhulkooda ilaahay ka shaqeystaan ilaahay sabiil jidadkooda u furo marka qasnadaha ilaahay baa qasnadaha cirar iyo dhul bahaya irsaaqadana bixiya isagaana irsaaqa laakiin si qaldan bay u fikirayaano faham xuma haysatay walakin al munaafiqiina لا يفقهون وحفهم مايان marka munaafiq meel kastu joogo
وصاص هذا حلقة من عنقوتين اللي بيسور رجو سنة هذا سمعيه مركا كل دجالمية كمسلمين ده مركا منافق ما ترى عنقوتين سميسو يدا دقالها حنيبته يدا حاجة وحكم مرته يميل كستو استراحة وحبا كستو جلي قرية والإسلام كها قردامين حاجة سحش قيمة هذا سخل دول في إنسانه اللي يسكلها دين تني شرعي كان رزق ساقط لسقى بحية وقسمها عربية بالإسكال يقولون وحي أورانيان لئن رجعنا لئن هدي رجعنا أن نقلنا إلى المدينة حق مدينة مقالة ونقلنا لو والله ودارنا ناية يخرجن سارع وسارع الأعز كشرفت بدن منها مقالة كسارع الأدل كدل لماذا بدن مركز وحسوار كان منافقاسي إنه يسوي عزيز يا شرف بدن إيه محمد الدل نمو أي كشيء جيا قال له يحول ولله إلهي بيوسق ناطي العزة عزة يا شرفته ولرسوله رسولك سيوسق ناطي وللمؤمنين مؤمنين تيوسق ناطي ولكن المنافقين لكن المنافقين لا يعلمون كلام معيا وقفك هذا من علم يا حقيقة قرشة كما قلت هاي سكل وسجى فكرية قلدان منافق ولي قال كائيو إنه كأجل دوادئيو إنه أفكي سوحوشك شيئيو meelaha golayaasha uu fadhiyay inuu ka qayb galo iyo inuu wax moodo iyo waxaas wuxuu arkaa ciidadii iyo sharaftii halka tahay laakiin ma garanayo waxa laga yaabaa inuu yasayo masaajidka iyo khayrka iyo qofka inuu labiska islaamiga ku labistay iyo waxyaabahaas inay la tahay xaqirnaan iyo dib u dhac iyo hoosayn inay la tahay marka inuu sida gaalada u labistay iyo golayaashooda inuu soo fadhiistay iyo waxaasina inay u arko xoogay sarreyn iyo waxaas inay tahay ciizo iyo sharaf marka taas alla wuxuu leeyahay ciizadu الله يا رسول كاله وعزة جوكت أول مؤمنين تعالوا عدي إلهي كحرنتا رسولك سكحرنتا لا عزة حشي عزة له إلهي عزي ومؤمنك أي عزة وصنات لكن منافق قرن معي ملك الكرهيني وسورة النساء الله لها المنافقين يسي قالوا يقول ديان الله سبحانه وتعالى يقول أيبتغون عندهم العزة قال هذا أكتوده من عزة يشرف بكرهينيا شرفت الظنون مقالة لقد حرادينيا فإن العزة لله جميعا عزة ما أنت إلهي سبحانه وتعالى رب واسكاله العزة ده دونيسو إلهي كتاب كيس قبصه رسول كأمر كيس قاعده قوبها خير كأقدوه شرعي دين توه جانسل عزة شرف ورحمة كاسكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هل كان الله سبحانه وتعالى وحو أمر يا مؤمنينتي كثرة ذكر ذكر إن لقضيه هذه الأشياء المنافقين الله يذكر بسكيش يستي وهي قابل الردود ذا قال له المام يا مؤمنين يهربك حرمة وليبا وقت جوادوية هاي وحلقة يا باقف كدين جيرد سكت مع ده مالك إيو أولاد إيو وحن الدنيا وسعتان يعني إلهي ذكر يسوي كمشغولين والعبادات خير الدين تأيي إلهي ذكر يسوي حكا مشغولين يا أيها الذين قوا آمنوا إلهي رمييو لا تلهكم يا مشغولين أموالكم مالكين يحولهن ولا أولادكم يعرورتين تونا يا كمشغول عن ذكر الله إلهي ذكر جسد حسك إلهي سبحانه وتعالى يا كمشغولين ومتاع لنا ينورشنا الدنيا ذي يقول روح ذي يا أولاد يا مالك وحس يطاع ذي ربي عبادتي سي يا كمشغولين ومن يفعل قفك سمي ذلك أرنك فأولئك كواسهم يجو الخاسرون كوا خساروا بيبي marka qiyaasiso khasaarihi dhama waa kaawi waayo wixii baaqiga ah ee saxda ah waa wax kale ka mashquuliye marka inaas cabirto marka doonayso hadii maalka iyo awlaadu ay waajibaadka ku dhaafiyaan salaadihi soomkii sakadii waxa bixin lahayd waxyaabahaas hadii waajibaadka ay ku dhaafiyaan oo iyaga orodkooda iyo xuraadintooda iyo biiludoonkooda iyo maalka tibintiisa iyo waxaas iyo suuqa bacsanaysa isleedahay faa'iidada ribax raadi haday waajibaadka ku dhaafiyaan khasaara kuma dhina ku dhamaat haday sunayaasha ku dhaafiyaan meel xuma ka laalaada khasaara taaganta lafteeda khasaaraha si kala xun hadii aad eegto miisaanto maxaa dikriga ilaahay ka intee ka mashquulshay saacadood oo aad ku jirtay hawlaha adduunka imisa saacadood oo ilaahay dikrigiisa ku jirtay way ku soo baxdo miisaanku xagga u badan yahayna حق خسارة وسقطها مر والله وين الدب سعبرتو ميزان توي وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا بحية مما وحي رزقناكم أن يدنكم إرساقني من قبل كهر أن يأتي إنت إيمان
أحدكم متكين آنو إيمان الموت لمشدي فيقول أوران ربي يا ربي ربي يو لولا أي هلا مات أخرتني دب إيدكتد إلى أجل إلى مدو قريب دو مدير ما دب إيدكتد حاد سمعين لهي فأصدق صدقا لبحه وأكون نقضو من الصالحين كون نفسا فأصدق صدقا لبحيا وأكون وحان نقنيا من الصالحين كون ونكسن بان نقنيا يو حجكي إيو سكدي إيو عباداتكي إيو وحاسبا بسمينيا marka intaan taas iman calaalkaas iman hadday goorta ayadu marka halkan infaaq iyo wax bixintii maalkii way ka hadashay maradi taskiyadii nafsiga iyo dhikriga iyo taacati la soo sheegay halkan wax bixintii iyo infaaqi iyo qiimaha uu leeyahay marka waxa yana cajiib ah mimma razaqnaakum erayadaas laba wax cajiib ah ku jiro oo alla wuxuu yiri mimma razaqnaakum min baa la geliyay intu waa tabciidiyo wax kamid ah oo dhan aad bixiso ولا يسألكم أموالكم حولين اللي ويديسن ما يناد بحسان من وحكم إذا بعض إن عكرنا وحلا يلي رزقناكم أنا قاعد نسيب مركه هرب وحول الليل ما وحول يكو هيستين حطبعتين وحاسمها هي حولهم أسبابته يدريق ينكسوا قلنا أنا قاعد ينفض يدنا يدنسوا حريني وحيجي بها هيسان مما جعلكم مستخلفين فيه وتصامر خليفة الله يكدي مركز أحد أنا ولا شيء حداد هذا وحبحين ويدو وقت علوس باصو سocdo geeridu degdeg bay u imanaysaa hadhowna calaacal iyo dib ha la dhigo iyo waxaas baad sameynaysaa oo Abdullah ibn Umar waxa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waxa laga sheegay wuxuu yiri qofkii maal leh xajka ilaahay xajka rabbi gaarsiinaya ama sika ay ku waajibtay oo aan sameyn markuu dhinto rajcu dalbanaya inay loo celiyo waase waxaan Abbas oo taas gaaladan ku ogeyn رسول القرآن كان يكتب آيات الأخرى مركز قفكي محولي أكون من الصالحين صدق الله بحر صالحين تكمل ولن يؤخر الله ألا دب مدق نفسا نفنا إذا قرت جاء ويمادو أجلها أجل كيدي مركز مركز ماضو نفنا دب الله مدق مركز أجش وصوص عطا كد يرجروه أدو أجش كهر ديري ولا ترتنون صدق الله بحنتا وقت وقرن ميسجور وإيمانيو ويريدوا كوا ويسأو قبطه وكوا يرير الله كان وقرتها مركا قفك ما قرن أسبابتنا وكل دوين هنا متبع حمو صدا وسر الريال مغضى متبع يسوي إسكاع في ماضي قبل إسكاع صحوني يقلب إسكير هذا متبع شيل حفظ الله كل ما متبع بيرد الشاء متبع مرد ليا وحكوا عيا قرميس مركا مر والله إن ديارت هاي وحاجة هرب استميسوا بلين جوانيا والله ألا خبير اللي جن أجوي حجالوا بما تعملون وحد سمين إنسان مركا هضوا حويها وشاد قبصوا شقيسون سورة تغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة تغابن وسورة مكية آياته من وسديد طبعا آيات وحكوا كجرا آيات مدنية وآيات مدينة كسودية ويجونا سورة كجرا marka dadka qaarkood waxay qalibeen inay suurad makiye tahay qaar waxay qalibeen suurad madaniya inay tahay aayaadkeedu waa 18 aayadood ilaahay subhanahu wa ta'ala adillada rububiyada iyo rabbinimadiisa sheegaya ayuu suurada ku bilaabaya iskiin baraya kadibna Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka waramaya ilaahaas iskiin baray inaad caabudaan hadaa diidaan ku cibra qaata dadkii hore ee sidaas oo kale laga waayay ina halaagsamay waxa kale Allah subhanahu wa ta'ala uu ka jawaabaya قالدي ضفيرتي رسول لماذا أنبياء الله صادر يا بشر كل شيء قالدي ضفيرتي بعثنا يسوع صار كي قيامة العديسة كواسنا الله سبحانه وتعالى وشفيا وكتشوابي وحكى له الله سبحانه وتعالى ودي لذا كيانه وإن بريا وحنا كبد بادينه يوحلا ينجربه أوال كان هلينه قيامها يين ماشي اللي يسكون لك ريلو كلا فوري أي تهاي من خسارة يوم منه فائدة بدو لو كي خسارة وحكو خسارة كي فائدة وحكو فائدة تاسنا ولا نقول رميها سورة قدر كانوا كهر لساء إلهي نقول رميه سبحانه وتعالى عكروا كهر لساء دونك يا أولاد اللي حاسسك إن ليسك إلى علو أنك مشكورين إلهي سبحانه وتعالى حديث ذكر الجيسة صداقة دين كسول وجبين سورة دين فريسة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح وحاء التصبيح صدا لله إلهي وحاء التصبيح سنية وهفية وحمانية نقصان ودن كهفية
ما في السماوات waxa cirar ku dhex jira وما في الأرض waxa dhulka ku dhex jira marka ma waa farabadnaan ما في السماوات فربضنان waxa cirar ku jira waxa ku jira ayaa ilaahay u tasbiixsanaya lahu alla wuxuu leeyahay الملك mulkiga ayuu leeyahay mulkigu marka koonkan oo dhan isagay mulkigiisa yihiinoo kaa'inaadka iyo waxa jiro oo dhan isagay hoos joogaan marka taas waa in loo tasbiixsado waxa uu ku mudanayo way rabbi subhanahu wa ta'ala walahu wuxuu leeyahay alle alhamdu ma hadda maanteed buu leeyahay oo amaradiisa iyo wuxuu amray alle subhanahu wa ta'ala waa wax wanaagsan weey oo abuurka uu khalqiga abuuray alle waa ku mahadsan yahay oo nimcada alle subhanahu wa ta'ala iyo abaalka faraha badan alle waa ku mahadsan yahay aakhira iyo adduunba alle subhanahu wa ta'ala isaga mahad leh iyo xaalad walba ma hadda maanteed ilaahay buu sugnaatay وهو اللي على كل شيء وحكست قدير اللي أوده ويحب اسم الديدانه وحول بقدرتي أوديس أيكون معموله مركا أوديس يمهديس يملكيس أنتوا وحكينيا خلقي أردن إنه تصبح صدق نرى يقول وحكوشرا والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي عليه ويه خلقكم من عبوري فمنكم محايد كمذا كافر وقالع ومن كافر متقالع ومنكم محايد كمذا مؤمن من مؤمنة dadku labaas kala baxaya oo abuurkiin la idin abuuray baadadna sharba ku abuuran oo waa shariir naf shariir ah kadibna kufriga iyo wadadiisa la jiifsanaysa oo reer gaalay noqonayaan qofna waa qof khiyar ah oo khaslooyinkii dhaqankii wanaagsan ku abuuran yahay kadibna khayrkii iyo iimaankii iyo taacadii raacay labada dariiq la kala maraya hadhowna labadaas baa lagu kala xaroonayaayo fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'ir wasallallahu dhaqaaqay والله ألا بما تعملون واحد سمينسان بصير ألا أركوي أو الله سبحانه وتعالى يسجى أركه عدة هنونك متيسته عدة ضلالك بعد نمضى متيسته عد والبا الله واركه ووحي كهب ويهم بالله سينا يا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خلق ولا وحو أبوري السماوات غررك والأرض ذلك أيها الله سبحانه وتعالى أبوري بالحق حق أبوري الأهل وعاب ولو أطيع الله أبوه يقول حي تاجين إله عبادة طاعدس وصوركم على وائد سوري فأحسن واهجاتي صوركم صورتهن وشكلهن يقابكن على قاب روح بدن مدخلك ويدك أورك هو يدك كشرا والرحم كي المجلانك فقال السوري هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء رحم كل حديثة صودون على يدك سورين وصوركم فأحسن صوركم على سبحانه وتعالى وكذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك روح بدن بقى لك بركبه سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مركا سويك من الواحد قاتشي وإليه حقيسة أي المصير مرجع أي مش غنق من يعيتها مركا أنت أصلا ما كان لك صابري وإلهي أودي سلوك بري وخلقي وتصبح سنة يلو بري ملكي جيسة قدرة جيسة خلقي ويدنا أبوري خلقي وعلي يلو أبور وحاصل ما كان لك صابري بوحى يصورك ويسوري وإليه المصير كان معناه محيطان وحال له ارتقى كثير سويا الله سهورتك يسا ملقى الملك يكون كسكله أود عليه يسان وحصل معه وقالي حد له ارتقى وإليه المصير حق سايا مرجع ما شاء الله نغني عيطان يعلم وأجي هاي هذا وح بين له ارتقى لهي يا هذا هذا دور لا إيمان لهي يعلم قال وأجي هاي ما في السماوات وح غير كل حشرة والأرض دول وح كل حشرة ويعلم وحوجي هاي ما تصرون وحد قرصان إنسان وما تعلنون يا واحد موجسان إنسان والله ألا عليم ألا أقوي بذات الصدور لا بها وح صاحبك مركا إلهي علمي يسوى علمي جود يلو وح كجرا وحلا قريه وحقر لوري وحوص لوري حتى وح لابت كجوا بناك وصل ظاهرين مركا وح ولا ما قرين كرب سبحانه وتعالى سيد رادي فعل لص على واحد سمين إنسان يواحد من سنتين يواحد دونتان يحالدين مركا بحالة ذكر ربي عابدان dad caabud weydaan waatan waxa leeyahay dadkii iyadoo saal loogu waramay ay xoogaal yihiin haddana ilaahay diintiisa lagu kari laayahay alam yaatikum yaana idin iman naba'ul ladina kuwi warkoodii kafaruu gaaloobay min qablu horay oo ambiyadii hore kuwi ku gaaloobay caad iyo tumuud iyo qom nuux iyo fircoon iyo iyada warka haynin fadaaquu wayda dhamiyeen wabaala amrihim ay suu'a caaqibati amrihim amarkoodii gaalnimada ahaa cirib xumadiisii بين الرميين ولهم أدونك والجوع عقاب ولهم وحيليهم عذاب أليم حنون كل الآخرة أدونك ولا الرقي آخرنا وعوضا بس حيث سببته
سياد سجى إلى لسان بليدين كشيء ذلك أرن كسبب تسوحوي بأنه أمر يشاني كانت وحي أهي تأتيه من أتمي رسوله سجودي بأتمي رسول الله أصدر إياك بالبينات حجوين عد واضح وحق اللي فهميه وعن شك يقرسوا منا لهين وكانه فقالوا وحي هذين هل كي حجوين كأي كهد لهاين وحقوق هذا لهاين والرسول كرمين لهاين وقيمين لهاين حجج كالله كان بينات كان حاجة بمي يجيله أنبياء اللفتوا ذي أجا فقالوا وحي هذين أبشر ما بشر با يهدوننا أننا نهنوني بشر بنا نهنوني ملاك بدوني يعني واحد صادر فكفروا ويقالوا بين وأنبياء بيكو قالوا بين وتولوا ويجستين وهنونك حقنا وكجستين واستغنى الله ألا نوا إسككها في تونسيه وكم مارمي استغنى الله ألا وكم مارمي وحكفر ماي ولا هلاقي والله ألا غني ألا غني ويهضنا حميد الله مهديه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إذن كي يوحبوك تشوفوا لنا قالوا ذان إذا هو غني هضنا وحميد الله مهديه حبا إذن كما باهنا يكفر ماي ساسا مركا لوه هلاقي عيبتي واحد كل عام وحويه بشر نوادي الأنبياء بشر إنه هنونيو نجحان صنمية قرية وحنا إله يكلفتون عابدين عقل كل شيء وكلا قروي مركا تعاصنا عقابك عذابك وكمتين مركا إن الأسكال عليه ووددوا دي أن لمريني ميا وضاع سنين من ألم يأتيكم سوي حدكين إذا وركها هينين ما تكنوا قطعان سأسأل الله سبحانه وتعالى عقلك قلوبته ولا هدية